xanuunkeeda iyo dhibkeeda weeye waxaan loo hayo xaaladda aan ku sugnaana ilaahayga weyna waaxid unbay u saxaaban tahay waxyaga bini'aadan loo xisaabi kara maaho kolley kol daris iyo wixii undadaho macnaha ehela wuu naga warqabaa shira xasan maxamed baa lay dhahaa gabadhan baa iga xanuunsan waa 16 jir waxba ooma hayo xerada ifaan ku noolahay waxaan haysta male nin ima hortaagna iyadiyo gabadhan iyo wiil basaa dadka dhalay labadooduba way joogaan iyadu way iga xanuunsan tahay baa haya adag 2 sano iga xanuunsan tahay habeenka ma seexdo maalinta ma harsado dhinac idil baa lagu dhuftay dhinac uu ka yaraaday muslimiinta walaalaha waxaan ka codsanayaa islaamka inay ila isaaciideeyo gabadha isbitaalkeeda layla qabto oo ahlan meeshaan marin waxaan mar kale waan soo rafaaday korkeeda waan ku rafaaday anna sokor iyo dhiig karbaan qabaa islaamka walaalaha ee muslimiinta waxaan ka codsanayaa gabadhaas inay isaaciideeyaan 2 sano ay ku xanuunsan iyo ay xanuunsan tahay rafaad iyo dhibna hadda waan ku qabaa anna ruux xanuunsan baanaha gabadha waxaan rabaa islaamka ilaahay ummadda nabi maxamed wixii muslimiin inay isaaciideyso in lagu saaciideeyaan rabaa gooltoona ma haysto gurigayga waa bacdan waa waxaan artaan dhoobka aan ku jiro guriga walaalkay baa iskala caruur rajooyin u haystaa waxba ma haysto noloshaydu waad aragtaan salligan xun baa ii yaala qaabka anagu iska barakaysan yahay 2 ilmood baan dadka haystaa aabiyo arxantoona male kolley noloshaanadu iska bariga dhexe xanuunkeeda hadda igu sii daranba wax walba xanuunkeeda weeye xanuunka saa'idka waxaan la seexanayna waa xanuunkeeda sokortaydu ma degto dhaar iyo habeenba way socotaa korba u socotaa waxa la socotana waa xanuunkeeda 2 sano ay saata lugtu way ka dhuubatay oo ma dhawo lugtu way ibara sinta baa iga baxday meelan isbitaal ku geeyay iyaduna waa soo rugmatay waxa soo rugayna waa un xanuun isbitaalka aan tagnay cunno ma cunto caano looma gado wax cunno cunto ma laha wax irsaq ma haysato waxay haysato male ilaahay xaqiin baa ka deganahay dad qaxooti baan ahayn xerada ifaan ku noolahay hadii dad iska barakaysan ma mar hore waan ahayn haddana xanuunkaas ay dheeri noqday isbitaalku u dambeeyay aan geeyeen wuxuu waxba laga ma qaban kara gabadhan hadii wax laga qabtana kharash fara badan oo maskax loo haynin 5 milyan oo lacag waxaan ka kuba kharash gareynayo uu yiri isbitaalka aan geeyay barada ku jirtana waa kan waa meeshan jajaban eberka cunto ma cunto waxaan ku siin lahaana ma bahayaba hadaba cunto cuni lahayn waxaan siin lahaa ma hayo iyadana wax ma cunto waxa qaadata male jal ma qaadato waxaan ku siin lahaana ma bahayaba anaaba xanuunsan aniga baaba lafahaygi yay dan idhigatay qof sokor iyo dhiig kar qabtaanahay mana degaan waxay la degilaayihiin waa habeen iyo dhaarba xanuunka ay xanuunsantay hooyo idhahayso beer wax dhalay baanahay kullee ruux wax dhalayna wuu ogyahay wuxuu yahay ruux xasan iska hay ilaahay mooyana doon kale wuxuu sheegana malaha islaamka muslimiinta ma wuxuu sheeganaya dadka islaamka ee muslimiinta ee walaalaha ee Soomaaliyeed ma wuxuu sheeganaya gobasheedu waata sariirku ma jiifto salku ma jiifto joodari ma qabto wax u gadahayana malaha sa jirta anigu waxaan eega saaka inay ugu wacday saa weeyo dhibkaas fara badan bay haysta muslimiintu inay ila qaybsato ila qayb qaadato baan inay ugu yeedhay 2 sano ka hor taagnaa 2 sano wax isbedel oo ka arkay malaha dhibkaas geestan bay haya inaguna walaalahay baa tihin kuwa aan caawin haya ee marka gaarsiin hayana waan walaalahay muslimiin ah oo islaam ah oo ummadda nabi maxamed ninka jiir muslim ku yaala inuu iidan qaado oo gabadha dhibkeeda iyo xanuunkeeda bal oo dan qaado haduu isbitaal yahayna uu yara samro haduu kale oo aqli kale yahayna la dhaqdhaqaaqo baan islaamka saaka inuu wacay hooyo wax dhashaana beeraan seexanaynin baana dhaarta ma harsan hayo markay hooyo tiraahdo meel ilaahu yahay dilaac habeenka ma seexdo habeenka xalay aha sokortayda say u kacday ilaahay baa og intay maraysay waxa saa ii garahayana waxa weeyo gabadha xanuunkeeda iyo dhibkeeda ayadana dhib uu haya dhibkeedu dhib yar ma waa gabadh yar oo 16 sano jirta waa xaafid quraan macallinkeedii baa soo wax baray allah khayr siiya waa labadooduba wala xaafid quraan isaga ii wax baray isaga ii soo barbaariyay ilaahay khayr hasiyo hadii wax barashadeedu ahayd isagu wax baray anu waxba maana barin oo qof wax baraysay maana ahayn qof masaakiin aha xeraday faa ku noolahay masaakiinimada dana xanuun baa igu sii kordhay عند ولا الله المسلمين توه هذا وحي قبنا إنسان إلهي يجينا بركة إن تصاوحي وقبتان برا أنا وكذي يدب كذا ويا وحن لو هي حالة أقسم نهان إلهي جوينا واحد وبصحاب انتهى وحي قبل هذا الله حساب كرمه كل درس وحي ونضله معنا إيه لو نجور قبا نبكاس هايست نبكاس ربعين لي لجرجار الله إلى قيقا توقع ير اللي هي تمن شركة حافظ القرآن كا inay un haduu ilaahay yiraahdo laadiila qayb qaadataan baan inay ugu wacday oo inaguna inay ugu yeedhaan muslimiinta ilaahay inay la sii gaarsiiyo aan jeclahay walaalooyino muslimiinta waxaan islaamka ku wada socono waa muslimnimada waa danqashada ruuxu ka liita maalinta la qaadanayo
nin walba meeshuu joogo loogu gargaarahayo gargaar kale ma haysano xeradan ku jirno waa xero kooban waa xero qaxooti waa dad masaakiina annagu waa haddana kasii nugul lah nin ima hortaagno qof nin lami 10 sana weligay nin soo hortaagno xoogkiisa aana cunin labada ilmood ma ku hiranhayo maalinta ugu xoog badnayd ee maxan laha waxbay ku qaban weeye 16 sana jirtaa ilaahay baa ii fadhisiya odan baa ii fadhisiya malihi isbitaalkeena isbitaal yar xoolihiisu ma aha waa isbitaalka 6 milyan 5 milyan ka kaca aan lacagtiisa iyo awoodiisa toona aan haynana qof qaxooti joogtaana hooyadii iska xanuunsan walaalaha muslimiinta meel ay joogaan waxaan gaarsiin hayaa codka isaga in intii la iga hoos qaado wixii la ii qaban kara la ii qabto